wafdi ballaaran oo hogaaminayo hogaamiyaha xisbiga Waddani ayaa gaaray deegaanka Gaatama oo ka tirsan degmada Qoryaale ee koonfur bari ee gobolka Togdheer. Dadka deegaankaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay wafdiga, waxaanay kaga hor yimaadeen duleedka galbeed ee deegaankaasi. Ujeedada safarka mas'uuliyiinta xisbiga Waddani ayaa ahayd dhagax dhigga dugsi waxbarasho oo markii u horeysay laga hirgelinayo deegaanka Gaatama. Gudoomiyaha deegaankaasi ayaa u mahad celiyay madaxda xisbiga Waddani. Bulshada deegaanka oo munaasabad ku qabsaday deegaankaasi ayaa ku dhawaaqay inay ka baxeen xisbiga kulmiye oo ay ku tilmaameen mid ku fashilmay wax ka qabashada adeegyada lafdhabarta u ah nolosha aadanaha, iyagoona sheegay inay ku biireen xisbiga mucaaradka Waddani. Mas'uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga Waddani ayaa la hadlay dadweynaha deegaankaasi. Ugu dambeyntii waxaa la hadlay dadweynaha deegaanka Gaatama kaaliyaha warbaahinta musharaxa xisbiga Waddani Muniir Axmed Cigaal iyo hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan, kuwaasoo sheegay haddii uu ku guuleysto talada Somaliland xisbiga Waddani inay la imanayaan waxqabad gaadha guud ahaan Somaliland. Xirsi Cali Xaaji Xasan ka gudoomay iskuulkii magaalada Gaatama iyada oo 27 sanadood magaalada dhismayd, 4 dawladoodna aanu ka qayb galnay, midna aanay waxba noo qaban. waxaanu cadaynaynaa halkan ka cadaynaynaa inaanu diga roganay markaanu aragnay gudcurka madow ee xisbiga kulmiye tuuladan Gaatama waxa laga wax qabado dawladda leedahay maanaan arag ku cadaynayna oo aan ka noqonayn hadii wax walba noo keenaan annaga Waddani sabab sanadoodna annaga idin qabanayna, annaga idin dhisayna, annaga idin gurmanayna. Saddex sanadood oo awr baan ugu kaxsanay. waxaanu nahay Waddani ka harayno mana ka hari karo kii la qabe inta dooni rabay ciidaha gale caynaan ka hay haarayno wallahi ma ka harayno waa walaal Gaatama inta ka tagaan bay higla loogu iman jireen ardayda oo ka dhigan jirtay baahida ka jirta ee waxbarasho la'aaneed. 6 sanadood baa kulmiye joogay, 6 sanadood wax kama qaban. yana waa idin sheegayaa kooshku hadii bay kariyada laga saaro miyuu baxaa rasmi kulmiye bay kariyada waa laga saaray baykariyada kulmiyana Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Siilaaya labadaba way ka qaateen baykariyada inkastoo kulmiye ku jiro inuu imanaya carruurtiisa qurba joogan waxbarashada waxa ku jira Hindiya waxa yalla idinku maaweelin wala ku musharax ka kulmiye maamulka maanta 7 sano ka taliyay xukunku ka taliyay wali aan wax taradii ka soo gaarin marka lagu celisay maaru xidin tari doonaa macquul maaha qaatay maanta 5 sanadood Somaliland la soo noqoshadeeda la daata horta waxa hagraday oo halka dhigay ururdadii u kacay waa ururada baaqday noqdo halka dhigay xisbiga maanta magaca Waddaniga sita ee Waddani ee aanu wadno oo marka hore waa xisbigii bulshada. hadduu xisbigii bulshada yahayna arrimaha uu koow ka duwaya waa arrimaha bulshada ee kuwa idin taabanaya ay tahay idinka deegaanada kale Somaliland. dalkeenana waxyaabaha halka dhigay waxa koow ka ah in horumarka ay hortaagnaayeen shakhsiyaad wax gaar ah la siiyo ama wax gaar wax ku qaba oo insha Allah ta'ala aanu imika dhagax dhigaynaa iskuulkii ama xaruntii waxbarashada ee Gaatama. hadda annagu imika anagoo mucaarad aan leedahay hadda aanu sii qabanaynaa sii bilaabaynaa bal hadda kuwa dawladdiiba haya laga kar laa wax noo qabo soo wax doonaysa wax qabad ma aha kuwa noocaas maanta ba jooga kura kulmiya wax ku qabanaya dee maanta qabto qaar baa siyaasadda buulhunguri ka furtayo dadkan doonaya inay dilaalaan oo dadka inta ka yimaadaan waxay soo qaadaan aan soo gaarsiinin. waxaan leenahay markaanu joognay dawladana waa anagii dhisay shaqaynayay ee madaxweynaha taladiisa iyo tusmadiisaba ku shaqaynayay ee waxa la qabtay aragtee kuwii naga imanayeen idinka imanayayna wixii ay naga soo qaadaan idimay soo gaas maantana waxa idin leeyihiin kulmiyaan maantana dilaalka ay budleeyeen yeelaysaan. علي دار محمد بوس TV Universal Burco.